halkani waa Gaacir Media Tube. barnaamijka wixii cusub waxaad kala socotaan Gaacir Media Tube. barnaamijka wixii cusub marka aan leenahay wax cusub ma ahane balse aqoontu internetka ay ku jirtaaye waa barnaamij xambaarsan aqoon kaasoon idinku soo gudbino arrimaha teknoolojiyadda, difaaca, caafimaadka, sayniska iyo dhammaan wararka aan isleenahay xiisa gaar ah ayay u leeyihiin bulshada. haddaba maanta waxaan idinku soo gudbin doonaa adduunka sanad walba wuxuu lumiyaa $1 trilyan niyad jabka iyo caajiska dartii. waa warbixin aad u xiiso badan oo gaar ahaan ka hadlayso arrimaha cilmi nafsiga iyo cudurka dhimirka. haddaba dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan, intaanan u gudagalin faahfaahinta warbixintaas, fadlan subscribe, share, follow Gaacir Media Tube ee aan ku leenahay channelka aan ku leenahay iyo page-ka Gaacir Media Tube, Facebook iyo YouTube-kaba inaad ku xirantaan oo subscribe, follow aad ahdaan ayaan idinka codsanaynaa. aan ku bilowno. adduunka sanad walba wuxuu lumiyaa $1 trilyan niyad jab iyo caajiska dartii. waxaa la sheegay in dadka cudurka dhimirka qaba ee adduunka ku nool ay tiradoodu tahay 1 bilyan oo qof. haddaba hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in sanad walba ay lunto ama khasaarto 12 bilyan oo saacado shaqo ah caafimaadka dhimirka ama maskaxda darteed. waxaa la soo bandhigay cilmi baaris si wada jir ah ay u sameeyeen hay-adaha caafimaadka adduunka iyo hay-adda shaqaalaha adduunka, taasoo ku saabsan caafimaadka dhimirka ama maskaxda. sida cilmi baaristan tilmaamayso, 1 bilyan oo qof oo ka mid ah tirada dadka adduunka waxay qabaan ama haya cudurka dhimirka ama maskaxda. sidoo kale waxaa la sheegay 15% ama 15% oo ka mid ah shaqaalaha bulshada adduunka in ay la nool yihiin cudurka dhimirka. sababaha la xiriira dhibaatada xagga dhimirka ayaa kalifta niyad jab iyo caajis, taasoo markii dambena keenayso in 12 bilyan oo saacado shaqo ah in ay lumiyaan ayaa cilmi baaristani lagu sheegay. CGTN Africa ayadoo soo xignayso natiijada cilmi baaristan ee labadan hay-adood sida ay daawacday, haddii ay tahay dhibaatada caafimaadka dhimirka darteed, saacadaha ku lumaya waxay la mid yihiin khasaare dhan $1 trilyan. cilmi baaristan ayaa lagu sheegay in xarumaha caalamka ee loo shaqeeya in ay ilaaliyaan amniga shaqaalahooda, sidoo kale in ay u sameeyaan shaqaalahooda deegaan ku wanaagsan shaqada ama goob ku wanaagsan shaqada. iyo sidoo kale warbixintani ayaa ku baaqday in xarumaha shaqada ay diiradda saaraan niyad wanaagga shaqaalaha. arrimaha shaqaalaha culayska ku ah ee ku kalifaya niyad jabka iyo caajiska, sixitaan la-aanta dabeecadaha qaldan, iyo sidoo kale arrimaha laga dhawaajinayo in la dabagalo oo wax laga qabto ayaa cilmi baaristan lagaga hadlay. waxaa la sheegay wadamada adduunka ka jira 35% oo kaliya in ay diiradda saaraan ama ka shaqeeyaan caafimaadka dhimirka oo qorshe ay u degsadeen. ayadoo sidaa tahay, haddana coronaviruska in uu dhibkii horey u jiray uu sii badin karo ayaa mataqaanaaye lagu sheegay warbixintan. ra'yi ahaan ayaa loo soo jeediyey in wadamada miisaaniyadooda ugu yaraan 2% in ay u qorsheeyaan shaqooyinka la xiriira caafimaadka dhimirka. cilmi baaristan ayaa lagu soo bandhigay sababaha kalifa cudurka dhimirka in ay ka mid yihiin buuqa lagu sameeyo shaqaalaha marka ay ku sugan yihiin goobta shaqada, takoor iyo nidaamyo cadaalad darri ku dhisan in ay yihiin sababo dheeri ah oo keena cudurka dhimirka ayaa cilmi baaristan lagu sheegay. sidaas darteed, hay-adda caafimaadka adduunka oo qayb ka ah cilmi baaristan ayaa kula dardaarantay xarumaha iyo wasaaradaha kala duwan in ay dhowraan ama ilaaliyaan caafimaadka dhimirka ama caafimaadka maskaxda shaqaalahooda, sidoo kale in ay u sameeyaan shaqaalaha goob ku wanaagsan shaqada, iyo in ay raacaan nidaamyo cadaalad ku dhisan. haddaba dhageystayaasheena iyo daawadayaasheena sharafta mudan,
warbixinteenaas ee aan idiin soo diyaarinay maanta ayaa intaa inooga eg barnaamijka kan xiga intaan ku kulmi doono nabadiino.